shirkan jiraad wuxuu ku saabsan yahay rabaa inaan ku dul istaago kuna balbalaariyo runtii dagaal aniga iyo mahad salaataliyo hore nabad sugidda inoo dhaxeeyay dagaalkaasna waxa uu ka soo bilowday xarigii suldaanka iyo markii aan ka soo baxay iyo xilka qaadistiisii runtii arintaasi dad badan oo ehel ah oo qaraaba ayaa soo galay oo labada dhinaca beesha uu ka dhashay cayr iyo beesha dudublana waa dad wada dhashay wiil iyo adeerkiis weeye arintaasna runtii maanta waxaan iska warsanay si mug iyo miisaan leh ugaaska guud ee beelaha maxamuud hiraab duduble iyo madarkicis hiraab mudane xildhibaan ugaas yuusuf geelle ugaas oo runtii arintaas aan ku sharfay halkaana aan ka caddaynayo walaalkay mahad salaad runtii dhibkii inoo dhexeeyey iyo dagaalkii inoo dhexeeyey inuu halkaas ku dhammaaday maanta laga bilaabana aan suldaankiisa ahay asaga iyo reerkiisaba suldaanka maxamuud hiraab iyo madarkicis hiraab iyo hiraabba aan ahay maanta wixii ka dambeeyana aynu nahay walaalo isgarabsada runtii cadowgii ku farxayana meeshaas uu ku baaba'ay ina xallayna halkaas ay ku dhammaatay runtii dadku waa isqaba karaa oo waa bini aadan naf iyo shaydaan baa la xidhiidha laakiin waa in laga heshiyaa muhiimaddu maadaama shalay markii aan lay xiray xarigaas uu soo farageliyey ama halkaa igu soo gurmaday xildhibaankeyga yuusuf geelle ugaas maantana isagaan ku sharfay arintaas way dhammaatay runtii garabkiisaan taaganahay hadduu musharax galmuduga yahay wuxuu ilaahay u qoru helayaa wuxuu igaga baahan yahu helayaa wuxuu tolkeyga uga baahan yahay beesha maxamuud hiraab u helayaa wuxuu la nasiib lahay qoorqoor iyo maaragtay mahad salaad way ii siman yihiin waa dad walaalaha iyo musharaxiinta kale dee waxaana caddaynayaa inaan geed fadhi u ahay galmudug marka arintaasi waxa weeye xalay dhalay weeye suldaankii guud ayaa caddaynaya beesha hiraab ana suldaanka guud ee beesha maxamuud hiraab anigoo ah suldaan maxamed suldaan cigalle hooley dictor qanuuni runtii waxa weeye ciddii ku farxaysay faraxaaga halkaasuu ku dhammaaday hawshaasna waa la ebyey ciddii ka naxsaneed oo ehelka ahayna farxad baan idinkugu bedelnay hadda ragna waa kii isqabta waxaa la yidhi maan rageed waa mudaciyo afkood haddee dadnimada iyo ragnimada aan u dhalanay inaan isqabanno muhiim weeye laakiin qabashadeennu ama dagaalkeennu inuu meelaha qaarkii tago oo cadowga iyaga nagu farxo runtii sharafna nooma ahan karaamana nooma ahan waxaana mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinayaa xildhibaan ugaas yuusuf geelle ugaas oo runtii arintaas kaalin mug iyo miisaan le ka qaatay anigana aan ka aqbalay iyo raggii kaloo la socday oan rabin halkan inaan ka caddeeyo hawshaas way dhammaatay anoo suldaan maxamed suldaan cigalle suldaan hooley dictor qanuuni waxaan caddaynayaa hawshaas inay dhammaatay ilaahayna uu ku farxayo laba qofood hadday isqabato inay heshiiyaan maadaama walaalkii mahad salaad uu iga codsaday suldaankiisa inuu iscafiyaan ay heshiiyaan dee ugaaskiina uu iga qabsaday waan u sii daayey wax dambe oo maaragtay ciifa ama cuqdada aan qabana ma jirto dee waxa weeye anigu waxaan ahay nin laandheero ah uurka hooyadana leeguma ciilin ifkana leeguma ciilin dee mahad salaadna aniga cadowgeyga maahane waa dadkan suldaanka u ahay haddee marinxumadii iyo qaladaadkii dhacana halkaas baan ku tirnay mas-uuliyadda aan hayaana noocaas ah in wixii qaldamo aan saxo oo dadka u samro oo isku wado maanta waxay ka dambeeyaan wanaaggaas iyo khayrkaasaa noo dambeeya warkeyga intaasaan kusoo gabagabanaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu